السلام عليكم كلا وعنا أصحابي كسو دوابا قالين كمانتا إيا مقال عصوب ماركا كوباد هديات كو عصوب تاي جنال كينا فلان سبسكرايب صار سي شير جراي لايك تنا الكي لاوين سي دير قلين نوغو نقطو ماهي سيندين مقال كينا مانتا أصحابي وحايدي كوكسو قدبون دونا معلومات عصوب وكو أعدن فيلم ككورلس عثمان يا سيدو كاليه macluumaadadii ugu dambeeyay filimkaasi waxyaabaha aad ku daawan doontaan waxa ka qayb noqon doona kadib geeridii Ertugal Safji iyo Usmaan waa sidee xaalkooda maxaase dhaxmaray dhinaca kale Doondaar waxa uu sameeyay qayaano weyn haddaba macluumaadyo intan in ka badan waxay idinku soo gudbin doonaa muuqaalkan fadlan nala dhamayso هردن بير كدب وحان داوناي سفجي iyo Usmaan sida niyada iskugu damqadeen geeridii aabahood kadib waxaana ay bilaabeen in laabta ay isku furaan taas waxay tusaysaa inay midoobi doonaan labada nin ee Safji iyo Usmaan dhinaca kale Doondaar waxa uu sameynayaa qayaano weyn waxaana uu caawinayaa cadowga waxaana uu soo kaashan doonaa sidii hoggaanka xoog uga dheereysan lahaa Usmaan waana riyada kaliya ee dhaqdhaqaaq waliba uu sameyn doono waxaan bandhiga qaybta afartanaad ku daawanay dagaalamayaasha qabiilka oo kala orod ku jira iyagoo hubeysan waxayna taasna tusaysaa in Valentinius uu ka baxsaday sidoo kale waxaa soo muuqday Doondaar oo wajigiisa laga dheehan karo waji cusub iyo dhaqdhaqaaq cusub waxaana uu egyahay wajigiisa dabcan waana qofka ka dambeeya fakashada Valentinius waxaana marka koobaad halkaasi ka dheehan karnaa inuu Doondaar xiriir toos la leeyahay Nicola si uu kaalmo halkaas uga helo Yoolog Arsenal waxaan ku daawanay in inta badan iska horimaad uu dhaxeen jiray isaga iyo sidoo kale Usmaan ayaa hadda midoobaya waxaana isku kaashan doonaan sidii ay la dagaalami lahaayeen Byzanta iyo Mongoliyiinta ugu dambeyn halkee ayuu ku dambeyn doonaa masiirka Doondaar oo xumaan inta leeg sameeyay waxaase jiri doona oo la sii sheegayaa inay soo dhawaatay gabagabeyntiisa laakiin sidee bay noqon doontaa sheekada taariikh ahaan waxaa la sheegayaa in Usmaan uu gacantiisa ugu dhameyn doono sidaas ayna ciqaabtiisa tahay macluumaadyo intan in ka badan waxay idinku soo gudbin doonaa muuqaalka xiga intaan kulmi doono nabadgelyo